الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد حربنا إن فهمنا وحلا وضع balance sheet. حسب دينا what's balance sheet حلا وضع balance sheet. حلنا balance sheet كحكم دي هاي financial statement يدا. then financial statement يدا ويبدين. financial statements كحكم ده income statement وحكم ده balance sheet وحكم ده the cash flow statement, the owners equity statement وحاصل لهم حالس كلها financial statements حالس كلها. مركا balance sheet كحو كتيرسن هاي financial statement يدا financial statement يدا نوحاواي ماشا لغا أركي كارو هيرك او كمباني وتاغن يحواي. مركا statement تيغان لدها هاي balance sheet كا محوكو شيغا أسيغا وحان لهنا حق ماليديد كان لدها هاي balance sheet كا ووح كو موجينايو مس كوتوسايو سدح شيود. balance sheet ku waxa waay meesha laga arki karo hantida oo company-gan haysto, deemaha lagu leeyahay iyo dadka owners-ka ah lacagta ay ku maalgeliyeen meeshaas. Haddaan qaab kale u sheegno waxaan dhahaynaa balance sheet waa meesha laga arkayo wax uu company-gu haysto iyo waxa lagu leeyahay. Dhanka kaleeto waxaan kale isweydiinaynaa waxa waay componentska uu ka kooban yahay balance sheet-ka maxaa waay waxyaabaha lagu qoro balance sheet-ka maxay yihiin. waxaan dhahaynaa balance sheet-ka waxa lagu qoraa saddex shay lagu qoraa oo kaliya. saddexda shay ee lagu qoro balance sheet-ka waxa lambar 1 ah waxa la dhahay asset waxa waay hantida guud oo company-gu haysto waay oo company-gu ugu talagalay inuu ku shaqeeyo waay. marka component-ka koowaad ee lagu qoro balance sheet waxa waa asset laha. then asset-ka wuxuu u kala baxaa asset-ka laba nooc. waxa jiraan laba nooc oo asset ah. nooca koowaad oo asset waxa la current asset laha, nooca xigan waxa la fixed assets laha. marka laga hadlayo current asset waxa waa asset walba oo si fudud loogu bedeli karo cash waxa la current asset laha, ama asset walba oo aan isticmaali karno waqti gaaban after that ka dhamaanayo asset-kaas waxa la current asset laha. the current assets ka waxa kamid ah cash, waxa kamid ah account receivable, waxa kamid ah inventory. kuwaas waxa la isku dhahaa current asset la isku dhahaa because of assets kaas in loo bedelo cash waqti gaaban ay kugu qaadan kartaa ama waa asset aad waqti gaaban isticmaali kartid. nooca xiga ee asset waxa la fixed assets la waxa waay asset kugu qaadanayso in loo bedelo cash waqti dheer waay. okay asset walba oo aad isticmaali karno long term isticmaali karno waxa la dhahaa fixed assets laha. component-ga labaad ee lagu qoro balance sheet waxa la liabilities la. liability waxa waay deemaha lagu leeyahay company-geena waay. marka laga hadlayo liabilities-ka waxa jiraan laba nooc oo liability ah. nooca koowaad ee liabilities-ka deemaha waxa la current liability la, nooca xigan waxa la long term liability waay. marka laga hadlayo current liabilities-ka waxa laga wadaa waxa waay deen walbo laga rabo in iskaga bixisid hal sano gudaheeda deyntaas waxa la current liability laha waay. nooca kale ee liability waxa waay long term liability waay. waxa waay deen laga rabo in iskaga bixisid hal sano iyo wixii ka badan waay. component-ka saddexaad ee lagu qoro balance sheet waxa waay equity la. equity waxa waay dadka company-ga iska leh hantida ee ku dareen meesha oo ay ku maalgeliyeen waa equity. okay saddexdaas component lagu qoraa balance sheet-ka. haddaan ku celino waxa leenahay component-ka koowaad lagu qoro balance sheet waxa waay asset laha. component-ka xiga ee lagu qoro balance sheet waxa la liability. component-ka saddexaad waxa la dhahaa equity laha. then markaan joogno balance sheet-ka waxaan dhahaynaa assets-ka marka la isku daro waa inay la mid noqdaan liabilities-ka iyo equity-ga la isku daray waay. it means waxa waa assets is equal liability plus owners equity laga wadaa macna. okay taas macnaheedu waxa waay asset walba oo company-gu haysto ama company haysto wuxuu noqon karaa hanti aan soo deynsanay ama hanti ay keeneen dadka owners-ka ah waay. then waxaan dhahaynaa assets is equal liability plus equity waay. then balance sheet-ka markaan joogno total asset-ka waa inuu la mid noqdaa liabilities-kii
iyo equity go la isku daray waay. Okay, assalamu alaykum ورحمة الله وبركاته.